jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya SIU sanadkan waxa uu qalin jebinaysa dufcaddii shanaad ee dhameysatay darajada koowaad ee waxbarashada heerka jaamacadeed bachelor degree. tirada guud ee qalin jebiyayaasha sanadkan waa 584 arday oo isugu jira rag iyo dumar. tirada ragga ay sanadkan ka qalin jebinaysa jaamacadda SIU waa 357 arday. tirada dumarka ay sanadkan jaamacadda SIU ka qalin jebinaysa waa 222 dumar ah. kulliyadaha ay ka qalin jebinayaan ardaydan waxa ay kaliyiin 7 kulliyadood. cilmiga iyo waxbarashadu waa qiimo. maalmahan waxaan u damaashaadaynay oo dabaaldegaynay farxad xaflado ardayda dugsiyada sare foonfooradu ay qabsanayeen. haddana waxaan u sii dabaaldegaynaa ardaydii jaamacadda dhameeyey oo masar ayagana u sii socda. marka ummadeennu runtii waxaa la dhihi karaa meel fiican ayay maraysaa aqoonta maadaama saan ugu dadaalayso. waxaa la yidhaahdaa hal iskool oo la furo macnaheedu waa hal xabsi oo la xiro. waxa la idinka rabo waxay tahay dalkan marxaladaha uu soo maray iyo caqabadaha haysta ma aha kuwa caadi ah. inkastoo la dadaalay inkastoo meeshii shalay aynaan joogin oo meel fiican hadda aan soo gaarnay haddana meesha loo socdaa ma aha meel dhow. waxaad ogtihiin imtixaankii shalay natiijadiisa la shaaciyey ee dugsiga sare nambarka arday ee ka dhacday waad ogtihiin. qaar badan ayaa hadda isku dayaya inay bannaanbaxyo ay wax sameeyaan, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waa inaynaan ubadkeennii iyo waxa ay mashquul ku yihiin inaynaan warkahayn. waxaa lagu mashquulay TikTok iyo taabuug. marka qof kasta oo TikTok iyo taabuug ku mashquulay uga mashquulay tacliintii natiijadaas ayuu dhaxlayaa. qof kasta oo soo jeeda habeenno u soo jeeda dhisitaanka mustaqbalkiisana miro wanaagsan ayuu gaarayaa. mahmahdii carbeed waxay ahayd man jadda wajad waman sarac xasad. waxay kaloo ahayd man dalaba alculaa sahra layaan. meel sare qofka doonaya inuu gaaro habeenno u dhafraa. habeenno waa la dhafraa, laakiin aan isweydiina maxaa lagu dhafraa.